waxaan bilownay arrintaas sabtidii dhaweeda la soo dhaafay guulo waaweyn baa laga gaaray waxa la xaqiijiyey webiga labadiisa dhinac cadow ku dhuumanisanayo maalinba dhinac u wareega habeenba dhinac u wareega dhibaato ku haya shacbiga Soomaaliyeed meesha jooga xoog looga qaado nin kasto beerta u soo go'do inta u soo go'day 1/3 ayaga askar ama boqolkii maxaan ku raadaan 30 ayaga lahaa haddii 2 kintaal ku soo go'do mid bay leeyihiin haddii mataqaanaa 2 neef oo xoolo meesha ku haysato mid bay leeyihiin ama 3 marka dhib badan bay ku hayeen shacbiga dooyo waxay samaysteen oo yar oo marna xagga loogu gudbo marna xagga loogu soo gudbo dooyihii waa qabanay wax la gubo iyo wax la jibsho iyo wax inta la soo qaado badankooda degmada balcad lageeyay noqdo baa laga dhigay dhibaato badan baa la gaarsiiyey runtii waxaan ku dadaalaynaa marka in aan ka dulqaadno shacabka Soomaaliyeed ee beerleyda maxaan ku raahdaa muruqmaalka ah mataqaanaa yani in khasabka raashinkoodii iyo beertu waxa ka soo loo qaado inaan u celino xuquuqdoodii Hirshabeelle iyo maxaan ku raahdaa kuma ekaan doono iyo shabeellada hoose wuu sii socon doonaa waad ogtihiin inuu ka bilowday beledweyne oo la furay wadadii beledweyne ee Booliburti waa marka dhinacyo badan buu ka bilaaban doonaa galmudug buu ka bilaaban doonaa baydhabo ka bilaaban doonaa Kismaayo iyo wuxuu ka bilaaban doonaa xamar inta u dhaxaysa waxaan ku dadaalaynaa oo naga go'an in aan dhibaato dambe shacabka loogu yeelin wadooyinkaas waaweyn ee dalku isku xiran yahay